Dab aad u xooggan ayaa casir liiqi ka kacay garaash ku yaala agagaarka isgoyska kiiloomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Garaashka oo ku yaala afaafka hore wadada u baxda garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho una dhaxaysa kiiloomitir 4 iyo Hotel Afrique ayaa waxa uu ahaa mid sababay khasaaro hantiyadeed oo burbur xooggan u geystay goobo lagu iibiyo agabka gawaarida. Sidoo kalena waxa uu dabkani saameyn ba'an u geystay xafiisyo ku yaalay goobta uu haleelay. Dad goob joogayaal ah oo warbaahinta goobta kula hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay arkayeen saameynta uu geystay dabka halkaasi ka kacay, iyagoona sidoo kale sheegay in aysan jirin waxyeello nafeed oo geystay dabkaasi. Cumar gudoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda ganacsatada gaadiidka cusub halkani aan joogno waa Xoosh Motors, waa macdar lagu iibiyo baabuurta. Sida indhihiin ay qabanayaan waxaa ka kacay dabkaas waxa uu geystay khasaare aad iyo aad u fara badan. sida aad aragtaan gaadiidka meeshaan dadweynaha soo gurmaday iyo gobolka Banaadir iyo shirkadda Hormuud oo dabdimiseed imaadeen gurmad fara badan oo ahelnaa. Ilaahay wuxuu noo saamaxay inaan baabuurteena la baxno. Hadda halkan waxa idinkaga muuqdo waa meeshii isbaarbaartiyada tukaamadii ahay, xafiisyadii, qalabyadii meeshii ay yaaleen. khasaaraha ugu badan dhinacaas uu naga soo gaaray. alxamdulillah hadda maqriba la sii gaarayaa, awoodii dabkana waa sii yaraanaysaa. ilaahay baa ku maadsan. marka waxaa ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan inta meeshaan joogto uga mahad celinaynaa sida gurmadka degdega oo walaalnimada leh oo gacanta leh oo hagar la'aanta ee noo siiyeen. waxaan si gaar ah ugu sii mahad celinaynaa shirkadda Hormuud iyo gobolka Banaadir dabdamisyadooda sida degdega ay noo soo gaareen. welina hooli far kama qodno, dabka waa uu sii socdaa, halkaasay howl maraysaa. aad iyo aad ayuu u fara badan yahay. dabka hadda idiin muuqdo waa xafiisadii, waa goobihii ganacsiga oo isbaarbaartiga. halkan waxa ay meel baabuurta lagu iibiyo, isbaarbaartiga lagu iibiyo. waa Xoosh Motors meeshaan dhex taagantiin. waa meel hanti aad iyo aad u fara badan ee taalay. saacadda ana arkaysaana weli dabka lama dimin, khasaarahana waa uu sii socdaa. wixii oo khasaare guudana dib aan ka soo sheegaynaa diilayra. gurmadkii loo baahnay dadweynaha ugu badnay waa helnay. maamulka gobolka Banaadir dabdamisyadooda ayagana iyo Hormuud waa helnay. alxamdulillah in ugu filan gurmadka hadda waa helnay. dad oo dhaawacyo waa ay jiraan. weli khasaaraha si aad iyo aad looma sii tiro koobin, laakiin khasaaraha oo dhameystiran biidnillaahi tacaala dib ayaan ka soo sheegaynaa. Dabdamiska maamulka gobolka Banaadir iyo midka shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa durba goobta gaaray, kuwaasi oo ay saacado ku qaadatay in ay damiyaan dabka maadaama uu ahaa dab xooggan, faafitaankiisuna uu ahaa mid si dhaqsi ah ku gaarayay goobo hor leh. lama oga ilaa hadda waxa sababay dabkaasi, balse waxaa jira baaritaano ay sheegeen inay sameynayaan maamulka gobolka, gaar ahaan kan degmada Waabari.